السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا مركليو برنامج كيني برشادة كمبيوتر كا غارهان مادديني اي بلاس كا ومالين متلادا اكو بيغن كو iyo soddonka bisha saddexaad 2020 cudurka jiro coronavirus ilaahay umadaha ka dulqaado xilli waxaan ku jirnaa xasaasi ah taariikh ay qormayso kuwa baaqi noqdo ay ka gudbay ilaaha naga mid yeelo hanugu daro inta jirna Allah ka qaado soo waxaan ku talin lahaa taxadir badan in la sameeyo waqtiga la haystana maskaxda aqoon lagu shubo jirkana ma aragtay almita laga buuxiyo intaas marka waa iga talaya tusaale aadan uma santihiin si guud gal marka cashirka waxaan ka cudur daaranaa mar hore ahayd inaan cashirka aan maxaan ku yiraahdaa aan idin la wada yani aan soo geliyo laakiin waqtiga ayaan ii saamixin soo iyo anigoo isla cashirka qorxi oo hagaaji oo nuxurka iyo balaari iyo laakiin intaan waqti badan iga qaadato ma ku haboono soo maanta cashirkan wuxuu ku saabsan yahay CPU موضوعيديسا oo ka kooban yahay wuxuu noqon doonaa sida caadada ah shay kasta aan baranayno waxaan ku bilownaa tacriifinta ama qeexida shaygaasi waxa uu yahay iyo waxa uu qabto waa muhiim waxa uu taagan yahay markaad ogaatid ayaa wixii ka hooseeyo wax gudahiisa ku jira ay ku fudaanayaan inaad ogaatid soo marka wax kasta aad baranaysid ka bilow ku baro habka carruurtu wax ku bartaan taas oo ah weydiin ku bilaabata waa maxay waxaan what is this Soomaali maxaa way waxaan ama waa maxay waxaan waa muhiim oo furaha cilmiga meesha carruurta ay wax ka bilaabaan ama ku ogaadaan waa standard waa iyo qof weyn qof walba waxaan qaadan doonaa sidoo kale inta magacyadiisa qaybaha uu CPU ka kooban yahay CPU components CPU features waxyaabaha ama tilmaamaha uu la gaarka yahay CPU-ga tilmaamaha uu sida gooniga u leeyahay sida processor cores CPU cache smart cache virtualization address size hybrid threading processor speed overclocking turbo boost integrated GPU Intel iyo AMD multiprocessors CPU socket types Intel sockets chipset types sida Northbridge iyo Southbridge okay iyo sidoo kale waxaanu qaadan doonaa CPU cooling systems hababka ama nidaamyada qaboojinta CPU-ga sida case fans on board fan specifications fanless passive cooling liquid cooling heatsink thermal paste inta ay waxa ay yihiin insha Allah wixii la mid ah okay waxaan rajaynaa cashirka aad u badnaa doonaa laakiin laba qayb ama saddex qayb wixii suuroobo ayaan u kala qaybin doonaa insha Allah taala aan ku horumaro marka hadda qaybta ugu horeysa oo ah waa maxay CPU ama muxuu taagan yahay CPU waxa laga soo gaabiyay Central Processing Unit okay sida magaca uu ku tusinayo waa qaybta hool ka shaqaysiinta ama shaqada centralka u ah wax kasta oo dhacaya ayuu central u yahay processing marka central processing unit magaca haddaad fahamtid wixii ku hooseeyo ka hooseeyo ama ku jira fahmaysaa waa chipka ugu weyn ee ku jira computerka ama waxyaabaha ay ka kooban tahay motherboardka markaad isha la raacdo shayga ugu weyn ee ku hooseeyo wareegsan aad arkaysid waa chipka ugu weyn waa howlwadeenka guud ee computerka wuxuu qayb ka qaataa ama uu qabtaa shaqo kasta oo ka dhacaysa computerka dhexdiisa u fiirsi ah waa jumlo iyo hadal dhameystiran wuxuu qayb ka qabtaa ama uu qabtaa shaqo kasta oo ka dhacaysa computerka dhexdiisa wax kasta oo shaqo kasta computerka qabanayo waxa qasaba inuu processorka uu qayb ka yahay ma jirto shaqo uu qabto computerka oo aan soo marin ama uusan qabanin CPU-ga si kale waa maskaxda computerka
wax kasta waxa lagu qiimeeyaa waxa uu qabto marka waa fahmi kartaa marka ahmiyadda iyo muhiimadda uu computerka ugu jiro CPU-ga waxyar aan dib u noqdo afarta shaqo oo computerka uu qabto input output processing iyo maaragtay storage afarta shaqo ee xogta lagu mid ay ahayd xog gelin midna xog kala soo saarid midna ka shaqaysiin midna kaydin ay ahayd mid ka mid ah waa waxa uu qabanayo haddana isla markaasna saddexda kale ma qabsoomayaan la'aantiisa so waa nin kaligiisana madax bannaan haddana cidna aan ka madax bannaaneen so marka processing cid ugu imaanaysa ma lahan at the same time qaybaha kale ama saddexda kale computerka uu qabtana mid asaga ka maaranto ma jirto okay shaqada uu qabanayo sida amarada iyo xogta instructions and data data waa xogtii instructions waa amarada yani hadaad wax yar aad samaysid tusaale ahaan xog baad xurufta mid ka mid ah taabatay xog baad gelinaysaa key qorta ama s aad qortay wax waa xogtii okay markaad failkii ama maxaan ku yiraahdaa aad furaysay barnaamijka aad rabtay inaad ku dul qortid ma u baahneed open marka leedahay waa instruction amraad siinaysaa save marka leedahay waa instruction amraad siinaysaa iyo wixii la mid ah marka waxa dhan ninka fulinaha waa asiga wuxuu ka helaa ama uu ka soo qaataa RAM-ka marka shaqada uu qabanayo CPU-ga wuxuu ka soo qaataa RAM-ka kadibna marka uu hawshu qabto wuxuu natiijada u diraa ama uu ku celiyaa isla RAM-ka so they can be displayed or stored si marka shaashada loogu gudbiyo ama qaybta kaydka loogu diro hard drive diskiga okay waxay muhiim inaan ka tagin waqtiga la socdo okay 4 daqiiqo iga harsan 10 daqiiqo mar inay dhaafto okay magacyadiisa waxa kamid ah magacyada CPU-ga central processor unit ama processor kaliya waa la dhahaa central processor waa la dhahaa ama microprocessor waa la dhahaa aan ka socdo marka taariikh yar oo kooban aan marka hadana ka soo qaadanayna ka xasuusanayna the CPU was first developed at Intel with the help of Ted Hoff and others in the early 1970s. So the first processor released by Intel was the 4004 processor shown in the picture. Okay, wixii ugu horeeyay CPU ugu horeeyay ay la horumariyay Intel horumarisay iyadoo gacan ka helayso Ted Hoff iyo rag kale intaba waxay ahayd muddada 70meeyadii processorkii ugu horeeyay waxa la soo daayay Intel ay soo deysay wuxuu ahaa 4004 processor midka aad sawirkiisa aad aragtaan naqshadan ay qaabkan design-kan ayuu lahaa okay sawirkaad ka aragtaan shown in picture okay muuqaalka CPU-ga casri ah oo ku jira CPU socket hadda waqtiga aan noolnahay qaabkii hore old version-ka ma jiro noocan waa nooca cusub habka kan socdo waa midkan chipka ugu weyn ee motherboard-ka laga helo waa rijaalkan hawshan qabanayo so marka hada socketkiisa ku jira isagoo banaanka yaalana marka waa kana kor iyo hoos top and bottom of an Intel Pentium processor. As seen in the picture above, the CPU chip is usually square. Sida sawirka ka muuqata chipka CPU-ga inta badan waa square with one notched corner dhinaca fanaxdaas yar ama waxaasuu meesha ku leeyahay sababta uu leeyahay waxay tahay to help make sure it's properly inserted to the CPU socket yani si uu socketka CPU-ga uu si quman oo maaragtay sida la rabay ah inuu u galo si hubantu ku jirto inuu u galo ayaa loogu talagalay meeshaas oriental point okay each socket only supports specific types of processors socket kasta oo motherboard-ka ku yaalo wuxuu taageeraa nooc gaar ah oo processor ah and each has its own pin layout mid kastana marka pin layoutkiisa gaarka ayuu leeyahay so marka motherboard-ka ayaa go'aaminaysa nooca processor ee ay qaadanayso so inaad la socotido marka motherboard-kaaga CPU-gaaga inay isla